السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدني مروين عروري عرولة دمانتي بوحنا ذلنا نهاي داود الكسر هذا برنامج كنا سومالي لان ما أنت أتك داوتان تلفزيون كقران كحرته وكل مقالة ستوكهولم دمانتي بوحنا ذلنا نهاي عويس قلب صبح وناكسن وقت ولاءات كشرتان برنامج كنا سومالي لان ما أنت قلب نمدن يعويس نمدن أي وحى أنو كقاعدة دقنا أما بعنكو سوق قاعدنا إننا كلام بلارن أو أي سوق مادين لا ما هكر دوان أي حسب كل مية وده كان سويدن أو أي وهلسو وده كدرس كأيه سويدن الدنمارك كلام كايا وحكى سوق قلي ماذا حدا النوعية ذا كل دوان أي كل رقم وده كان سويدن أي كسر حسب كل مية تاجر ريال فربدن أقوى يهنو يبرشوا أنت سومالان أي كل رقم قبل كإسكان أي كونفورت وده كسويدن كلام كان أيها كدعي مقالة مالمو وجددي سنة وحياة سيدي لو درجلين لها حول حسب قرامات ككل مية يضون عبارة الحلقة لجا واقع إسلام كان لجا هذلي سيدي لو تاكلين لها ضدك أي أباره ساميين أي كل دقن قيبة كمدة قبل هذا الصومالي لان كلام كان أيها وحكى صوب حي أجنديال فربضن أو لسكو أفكرتي يضون مدحدي سيدو كلا قبل قابياشي أو لما اسكو أفكرتين إن لو بهنيها إن لدرجلية حولها حسب كل مية أي وده كيسودن sidoo kale xisbiga ayaa waxa ku soo biiray xubno culus oo bulshada Sweden kulle miisaan culus iyagoo si toos ugu dhawaaqay in ay markaa ay ku soo biireen xisbi qarameedka kulmiye barnaamijka iyo sidii uu uga dhacay magaalada Malmö ee cariga Sweden ayaan inoo kala baxaya sida iyo daawasho wacan dhamaatiinba ilaahay baa mahadle sukan keenay maanta magaalada Malmö dalka Sweden inagoo ah xisbiga kulmiye taageerayaashiisa madaxdii gudidii aqoonsi raadiska madaxda jaaliyada madaxda Allahumma musta'an dalka Denmark oo marti inoo ah xisbiga kulmiye marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka idinka iyo inta taageerayaasha kulmiye iyo mujtamaca reer Somaliland oo dhan meel kasto ay joogaan ee inaga daawanaya TV-yada salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh marka ugu horeysa maanta waxayna la jooga madaxdii xisbiga kulmiye ee dalka Sweden gudoomiye ku-xigeenkii xogayihii guud gudoomiyihii garabka haweenka gudoomiyihii isku xidhka gudoomiyihii Denmark gudoomiyihii gudida aqoonsi raadinta ee Somaliland Maxamed Yuusuf Reed gudoomiyihii jaaliyada Somaliland ee Malmö Ismaan Ismaaciil marka ugu horeysa waxaan ilaahay ka baryayaa inuu shirkan inooga dhigo shir khayr qaba oo midho dhala gudoomiye ku-xigeenkii oo maaragtay aad garanaysaan Caasho Buraale Allah u naxariistay xaaskii Maxamuud Saalax Nuur Faqare wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland muddada dheer oo ah zaciim Somaliland xisb asaasiga xisbiga kulmiyana ahaa oo ah tiirarka uu ku taagan yahay xisbiga kulmiye Caasho Buraale ee dalka Sweden iyadana halmaan hadal kuma jiro waxaan garanayaa gurigeeda baan tagi jiray Allahumma musta'an Maxamuud Saalax Nuur oo Faqare oo ahaa wasiirka khaarijiga hadal badan uma kicin madaxdii oo dhan baa joogta dad badan baa hadli doona xigmad badan baa la isweydaarsan doonaa inaan shirka idin furo anigoo ahaa markii ugu horeysay ay ugu doorateen halkan Malmö gudoomiyihii iskoona haddana la doortay afayeenkii xisbiga kulmiye ee dalka Sweden
maantana isbedel baa dhici doona waan yara dalaci doonaa dad muhiima oo khaasa oo aan qof khaas aan doonayo inaan halkan uga sheego Hinda Qaadi oo ah gudoomiyihii aad garanaysaan ee garabkii xisbigii Allah musta'aan oo cid iskoone oo maanta ah xisbiga kulmiye kusoo biirtay xilna ka qaban doonta oo aan si gaar ah iyada u soo dhaweynayo waxaa muhiimada gaarka ah siile iskoone garabkii haweenka oo halkan laga magacaabayo hore loo magacaabay laakiin xafladan muhiimadeeda koobaad iyagu iska leh markaan intaa soo gabagabeeyo waxaan ku soo dhaweynayaa Saleebaan Cismaan Faarax oo garanaysaan gudoomiye ku-xigeenkii hore ayaa hadda la yiraahdaa laanta iskoone hadda wuxuu dalaci doonaa waxa soo dhan gudoomiyihii xisbiga jooga waan ka cudur daaranayaa inaan gudoomiyaha ka hor dhaco waxaan ku soo dhaweynayaa Saleebaan Cismaan Faarax mikrofoonka isaga inoo daadiin doona isaga ayaynu marti u nahay اللهم استعان waxaan leeyahay fal yaftafadal jaamac Saleebaan Cismaan Faarax ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxda xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha gudoomiyaha garabka haweenka gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka iyo dhammaan madaxda xisbiga ee fadhida waxaan kale aad iyo aad u salaamayaa marti sharafka shirka nagala soo qayb galay iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye aad iyo aad baan idin salaamay waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Maalmo soo dhawaada nala daadihiya xafladan caawa nagala qayb gala caawa halkan aad iyo aad baan mar labaad iyo mar koobaad bay idin soo dhaweyneynaa idinka oo mahadsan marka hadda barnaamijkeena waynu sii guda gali doonaa laba qodob baa inoogu muhiimsan inaynu halkan caawa ka tilmaano arinta koobaad waxa weeye programka xisbiga kulmiye maadaama madaxdii xisbiga ay joogto caawa halkan ay joogto oo aynu erayo badan iska oran doono iyo arinta abaaraha oo markasta oo dadka reer Somaliland ay meel iskugu yimaadaan u baahan in laga hadlo maadaama abaar baahsan ay ka jirto Somaliland ay ka jirto iyadana kulli kelmadaynu ka oran doonaa marka hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo soo aayado quraan inoogu furo Sheikh Maxamed فضل الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. إلهي نوانفع آياتها قرآنك شيخنا ومهدسيهي waxaan rabaa hadda maxaan ku dhahdaa inaynu halkaa ka sii soconno barnaamijkeena iyo sheekada xusmiye aynu sii soconno waxaan rabaa in yar oo warbixin haddii Ilaahay ka dhigo inaan halkan idinka taabto waxaan horta mar labaad soo dhaweynayaa madaxda xisbiga kulmiye hogaankii guud baa caawa halkan fadhiya sharaf weyn bay noo tahay in caawa hogaankii guud ay nala joogaan maalmo nala joogaan oo nagala qayb galaan xafladan iyo qorshaha xisbiga nagala qayb galaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada haddii aan inta halka ku dhaafo xisbiga kulmiye mar hore ayaa laga aasaasay gobolkan iskoone laga aasaasay marka hawlo badan baa la qabtay hadda maxaan ku dhahdaa si fiican buu u socdaa xisbigu u socdaa gobolkan u socdaa waxaanu ka qayb qaadanay maxaan ku dhahdaa inaan xisbiga dhisno degmada dhisno gobolka dhisno lacagtii maxaan ku dhahdaa iyo hawlihii xisbiga lahaa oo dhan laga qayb qaato hawl badan buu xisbigu soo qabtay hawlo badan oo kalena way yaalaan hadda halkan way yaalaan waxaan halkan bishii October 2016 aanu ku dhisnay garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee iskoone oo caawa halkan inoo jooga waan u yeeri doonaa mar dhow waan u yeeri doonaa magaalada la yiraahdo maxaan ku dhahdaa Helizambori iyadana gudoomiye iyo 3 xubnood baa hadda aan u filayaa inay caawa joogaan
way iman doonaan hadday kolley halkan joogaan insha allah maxaan ku dhahdaa caawa halkaasa programku inooga socon doonaa arrinta xisbiga kulmiye waxay noo kolley ku kooban tahay wax badan baa la qabtay wax badan oo kale waynu doonaynaa inaynu qabanno xisbigu wuxuu ku jiraa maxaan ku dhahdaa dardargelin xoog leh buu ku jiraa Sweden ku jiraa markaan Sweden ka hadlayno marka dardargelinta iyo maxaan ku dhahdaa qorshaha xisbiga ee wadanka ka jira waxaanu rabnaa haddii aynu nahay reer Skåne nahay ama guud ahaan Sweden baaynu nahay inaynu aad iyo aad uga qayb qaadano haddii ay dhaqaale tahay haddii ay isku xidhnaan tahay haddii fidinta xisbiga ay tahay iyo wax allaale wixii hoos iman doonaba inaynu maxaan ku dhahdaa ka soo dhalaalo hawshaas mas'uuliyiinta mar dhow aan u yeeri doono iyo maxaan ku dhahdaa madaxda cusubna iyagana waxaan u rajayn doonaa inay halkan maxaan ku dhahdaa dardar cusub iyo ay hawlo u taalo kulli waajibaadkooda way gudan doonaan garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye gobolka Skåne ayaan rabnaa inay halkan ku soo dhawaadaan gudoomiyaha garabka haweenka gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka iyo maxaan ku dhahdaa laba xubnood oo kale marka waa inay halkan isi soo taagaan waa isgaranayaan okay habla kala maqan oo way soo bixi kar waayeen hablahan waa hablaha xisbigu doortay oo la rabo inay hogaamiyaan maxaan ku dhahdaa muddada soo socota xisbiga kulmiye oo ay hawl badan baa halkan u taala gobolka Skåne insha Allah waan hubaa inay ka soo bixi doonaan hawlaha u yaala haddaba wax badan bay qabteen iyagoo maxaan ku dhahdaa sidan xisbiga uga dhex muuqan marka waxaan rabaa inaan kelmad kooban ku soo dhaweeyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Foosiya Caynaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجو الرئيسة حن أدي أدو سودوينا يا قدوميها حسبي بمعمل كحسبي كل مية السويدن دمانتوت أدي أد بدو مهتسنتين رجع دمربا مدحدا يوم مرتدا كلنا نوغا تميت ودن كندريس كنا الدنمارك ود مهتسنتين إلهي بقى مهدس كله مدو إلهي أفر بلادة أيان مكان حسبنا هنا حول بدن أي قبتين كوين بهري أنا كنا محرجين إن إلهي ذكي إنتاين كبدن أنا نقدح موقنا وحنا روا إن أنا المركب هرب كنت شرني إن ما دركتي ودن كي عبارة بدن باكجرا أنا كان جعلين رنتي إنه حفلة دوين سوي سنة هذا أنا لقمة مرمى بينقطي إن وحن كنت لجرني وقرشة يبوها يقفل بقى رجع دمر قفل بقى إنتي كران كيسة إن الحسوسته بحيان si ma daragtay loo caawiyo dadkii dhibaataysan ee wareysana dhamaan waxaan aad u salaamayaa martida sharafta leh iyo maamulka xisbiga kulmiye iyo garabka haweenka iyo gudoomiyaha dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaah anagu waqti yar baan waxaan u maleynayaa inay 4 bilood tahay intaan xisbiga gobolka Skåne garabka haweenka ku jirnay intaan oo dadaalaynay insha Allah kuwi nagu horeeyayna wax badan bay qabteen anaguna waxaanu rajaynaynaa inaan wax badan qabano idinkuna aad nala socotaan naguna garab istaagtaan in ilaahayna hawsha nala doortay nagu asturo waa salaamantiin gobol maxaan ku dhahdaa magaalada Helsingborg mudane Cabdalle halkan uu joogaa waxaan rabaa inaan Cabdalle kelmad ku soo dhaweeyo si uu halkan u yimaado ay Cabdalle السلام عليكم dhamaantiin mudane iyo marwada aad been salaamaya halkan hadda waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha Sweden Fuad Kamil iyo Ibrahim
iyo odayga xaaji aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. cabdalle wuu mahadsan yahay. waxaan rabnaa hadda inaynu kusoo dhaweyno marti sharafka maxaan ku dhahdaa iyaguna caawa halkan inoo jooga amba maxaan ku dhahdaa nusdambeedka xisbiga kulmiye, odayaasha xisbiga kulmiye, gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland mudane jaamac kusoo dhawow kelmadaada. gudoomiyaha ictiraaf raadinta Sweden Maxamed Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenka dalada guud iyo dhammaanba gudoomiyaasha laamaha iyo garabyada iyo gobolka Nuskone, marti sharafka ka soo qayb galay iyo martida inooga timid Denmark iyo guud ahaanba jaaliyadda Maalmo. dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib anigu magaaladan deganahay, gudoomiyaha jaaliyadaan ahay, marka xisbiga kulmiye waan ahay, laakiin xisbi kasta anigu waan soo dhaweeyaa. saddexda xisbi qaranba waan u martisooraa markay magaalada igu yimaadaan, isku si baan usoo dhaweeyaa. waana wax loo baahan yahay dalku inuu xisbiya yeesho, sababtahay waa ogtihiin oo caalamka xisbi qori ka taliyo, waa ogtihiin dee dhibaatooyinka ka taagan. marka mid kastaba maadaama halkan uu fadhiyo maanta xisbi xaakimkii TV-ga qarankuna joogo, waxaan mar walba ka codsanayaa in ay xisbi xaakimku oo aad iyo aad u qadariyo, u soo dhaweeyo xisbiyada mucaaradka ah. xisbiyada mucaaradka ahina inay aqbalaan iyaguna inuu xisbigaisi yahay xisbi xaakimkii oo isagu markaa maamulka hayo. inta haddii aan ka gudbo in yar ayaan magaalada Maalmo idinka warramaya iyo jaaliyadda Maalmo. magaaladan Maalmo runtii magaalo weeyaan ku taalla koonfurta waddankan Sweden, oo waxaan xuduud la leenahay waddanka Denmark. bad yar baa noo dhaxaysa anaga iyo Copenhagen oo aan gaadhin maaragtay 20 daqiiqo inta loo kala soconayo. jaaliyad runtii fiican weeyaan, jaaliyad aad isugu xidhan weeyaan. waa jaaliyadda qura ee ka jirta waqooyiga Yurub ama Yurub aan idhaahne dadka ajnabigu leeyahay ee qaaday saddexda jaa-isadood ee kala sareeya ay ka mid tahay jaaliyadda jaa-isada ay bixiso magaalada Maalmo ay sanadkii mar bixiso oo aanu ku guuleysanay 2010 annagoo maaragtay 2009 iyo 2008 lambar tuuganimi 2010 ku guuleysanay. 2012 waxay ku guuleysatay jaaliyaddu jaa-isada ugu weyn ee waddanka laga bixiyay ee la siiyo ururada samafalka iyo ururada maaragtay caadiga sida jaaliyadaha oo magaceeda loo yaqaano maaragtay jaa-isada dhalinyarada ee sanadka oo ay bixiso boqortooyada Sweden. 2013 waxaan ku guuleysanay jaaliyadda sanadka ee gobolka, marka ilaa 800 baanu kula tartanay. runtii way isku xidhan tahay bulshada maaragtay degan magaaladan Maalmo. jaamac waa mahadsan yahay. hadeer waxaan kusoo dhaweyn doonaa mikrofoonka siduu kelmadiisa u yidhaahdo mas-uul culus oo halkan fadhiya, waa gudoomiyaha ictiraaf raadinta Somaliland maxamed. kusoo dhawow maxamed. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan horta kolley sharaf maradeen maalmo joogno waxay waajibeen soo dhaweeyno hoggaanka xisbiga Sweden oo maanta martiino ah iyo maxaan ku radaa dhammaan madaxda kale sare ee mas'uuliyiinta ka ah waddanka Sweden waxaya iyo idinkoo mudante aad u mudan taageerayaasha xisbiga iyo jaaliyadda reer Somaliland maalmo degan dhammaantiin waxaad ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida ugu fiican qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaataan. sida la sheegay tijaabo inooga horeeyay gudoomiyihii Maalmo jaamac Ismaaciil waxa ay magaalada Maalmo kale caan ku tahay isku duubnaanta iyo isku dhawaanta. wax badan oo runtii lagu faanana way tahay. xisbigana wax badan bay koow ka taho markay noqoto xisbiga kulmiye waxay meelaha lagu tilmaansado ay koow ka tahay isku xidhnaantiisa iyo tiirarka uu ku taagan yahay maanta iyo meelaha ugu fiican. runtii sharaf bay noo tahay maanta in hogaankii noo yimaado dhammaystiran oo iyo rag iyo dumarba laamihii kala duwanaa oo dhammaystiran maanta inoogu yimaado si uu inoola dhiso intay noo dhiman. maxaan ku dhahday inoo dhiirigeliyana markay noqoto qaran ahaan anigu xisbiga aan ka mid ahaado xubin xisbiga ka tirsan sidoo kale aan ahaado, laakiin waxa ii dheer waxaan hayaa oon ku magacaabanahay maanta gudoomiyaha guddida ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Somaliland ee Sweden.
runtii guddidana halkana laga sameeyo maalmaynu hayn oo waxay kow ka ahayd oo iyadana faan kale inoo ah runtii inaynu ku faano oo sare u sheegneen maalmo laga sameeyey oo asaaskeedii aynu lahayn inagu haddaynu reer maalmo nahay iyo jaaliyadeena maalmo maanta sanad bay jirtaa guddidu wax fara badan oo fiicanna way qabatay runtii oo la taaban karo waxa ugu dambeysay dawaatii aan ku guuleysanay inaanu xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Sweden geyno waddankeennii oo ay soo arkeen wax badan oo runtii aad iyo meel fiicanna way maraysaa oo rajo wanaagsan bay aad iyo aad u leedahay wax isbedel maanta sanadka gudihii waxaan ku yeelanay baarlamaanka Sweden asxaab aynu ku yeelanahay dhab ah oo xildhibaano ah oo qadiyada Somaliland aan maanta u baahnayn inuu qof Somaliland joogo hadday igu joogaan runtii waana dad wax weyn oo wanaagsan oo lagu farxi karo waxa sii jirta kulli isku duubnaantu xisbi kaliya ma aha waxay u baahan tahay arrinkaas waa arrin qarannimo waxaan u baahan dhammaan xisbiyada oo dhan ay ka tirsan isku tiirsanaadaan dhammaanteen in isku tiirsanaano midnimo jirto sidaad ogtihiin waa tii isbedel baa kulli yimid waxa la soo magacaabay hadda safiir cusub oo la soo magacaabay waa ahayd caawin in la joogo waxa si jooga kulli Xuseen baa jooga oo ku xigay safaaradda ka tirsan iyo rigiskaba waana maxaan ku dhahday waxa haboon marka oo jirta kulli oo fiican anigu carab ku dhufto waxa safaaradda Soomaalida waa la furay wax la furay 12 bisha intii la furay ka bacdina waxaad ogaataan isbedel weyn baa Sweden kulli ka soo baxay una baahan inaynu ka kordhino isku duubnaantii iyo maxaan ku dhahdaa dhinac inuu wada jeesano way kulli qadiyadan marka la ictiraaf raaydo wax dhamaanteen wada taabanaysa wax xisbi kaliya oo gaar ah maaha wax inay oo wax qarankii ka hadlaya de kulli toole rag baa inuu saynaana siday doonaysaa noqoto ama ay kulli iyaguna qiilkooda wataan inaguna waxaan wadanaa inuu noqono qaran kaligii taagan oo madax banaan oo Somaliland la yiraahdo iyaguna kulli taatu ka duwan bay ku doodaan waxaana dhacday maanta kulli diblomaasiyadda adduunka si kale u shaqeysaa ogtiin sidan maaha waxa laga furay safaaradii Stockholm waa laga furay Soomaalida waxaan safaaradii Soomaalida ay Stockholm waa la furay 12 bisha kulli juhdi fara badan iyo hawl badan baa soo kordhay in taa ogaataan oo u baahan in la xoojiyo runtii isku duubnaantii iyo in dhinac loo wada jeedo dadaalka la lebilaabo marka kulli hoggaankeeni maanta xisbi xaakimkana waa ku maqlaya waxaan rajeynayaa xisbiyada kalena kulli tolaan xiriir wanaagsan naga dhaxeeya wadan iyo cudba sidaas si leeg baan ugu wada hadalay iyagana ay ka go'an tahay ogyihiina inay lama huraan tahay ninkii maanta doonaya qarnimada Soomaaliyeed meel ka soo saara in dhinac gacmaha is qabsado marka hadalka waxaan ku dheerayn maayo mar labaad baan soo dhaweynayaa dhamaantiin aad iyo aad u soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada gudoomiyaha gobolka Skrabori mudane garaad dhuux garaadka aad loo soo dhaweeyay soo dhawow garaad bismillah kulli salaam wa saaxiibkeeyo hiil baan u qaadanaya diyaar xoog loo soo dhaweeyo aad buu maatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin waan idin salaamayaa mudanayaal iyo marwooyin waxaan ugu horeyn halkan ka salaamayaa hoggaanka guud ee xusbiga kulmiye Sweden Fuad Kamil Ciise hoggaanka Denmark Xasan madaxa ictiraaf raadinta gudoomiyaha jaaliyadda iyo dhammaan guddida kale sharafta leh xusbiga kulmiye kale halkan caawa saraakiishu dhan way joogtaa kuwii dhexe kuwii sare kuwii hoose iyo taageerayaasha xusbiga waxaan u maleynayaa looma kala maqna dee barbarkay ka baxdaan hooba kala galeen inta haddaan ka tago aad iyo aad ilaahay baa mahad leh waxaan ugu mahad celinaynaa gobolkan Skåne gaar ahaan Malmö sidaad noo soo dhaweyseen runtii la xajaalo badan baad doonteen oo waxaan ku fikirayay oo nimanka sidan idin marxabaysiiyay de wadankii xaaladaha adag baa laga soo sheegayaa wax badan bayba ka tari karaan taan ogaada bal ogaada ka baqayna oo laga yaabaa wax badan ka tari kartaan waxaan kala doonayaa halkan inaan kelmado yar oo mahadnaqa groupka hadda la magacaabay xusbiga ku cusbaa xil baa la idin doortay runtii xilkan waad dareemi doontaan markaad shaqada bilowdaan marka koowaad ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idin fududeeyo
marka labaadna waxaan idin leenahay ha fadhiisanina anaku ma fadhiisano runtii waxaan u fadhiisan weynena dee shaqaan haynaa haddaan fadhiisanayno waxaan leenahay war baasha ma qaban kareen naga qabto oo naga wareejiya marka idinkana ilaahayna ha idin fududeeyo kolley halkan dee waxay ila tahay caawa hadal hari maayo anagu waa intii horaan sii dhahaynaaye wuu inoo dambeeyaa badidiisi waa la odhan doonaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa telefoon kale soo weydiiyo xisbiga ugu horeeya gudoomiyaha xisbiga Denmark madaxda kale dhammaantiin salaanta islaamka ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan أنا واحد نوع كعيون كلية horta marka hore shirkan isku nimi waxaan uga faa'iideysanayaa abaarihii wali sidoodii bay u jiraan dadka malaha marar hore wax dirnay laakiin waxa loo baahan yahay in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bay gacanta gelin jeebada oo wixii la awoodo in hadday doona caawayna halkan ba ka bilownay dadkeenii abaar baa laysay imika xoolihii way dhamaadeen doorashadii waa ogtiinay dib baa loo dhigay sababta loogu dhigayna waa xajalada dalka laga qabo marka inaguna aynu bal xageena wixii awoodi karno qolada Denmark iyo qolada Reesu dhanba isku tageeno inaynu wixii awoodi karno mar labaad iyo mar saddexaad badarnaaba leeynoga baahan yahay waxa kale ee aan halkan uga kacay anu gobolka Småland baa matalaya maadaama gudoomiye maqan yahay xisbigu ka shaqeeya gobolka si wanaagsan buu shaqeynaya hawluhu way soconayaan doorashada la kordhiyay waxbayna yeelmayso si shaqeynayna insha Allah inta doorashada laga gaarayo ee xisbigu mar labaad ku guuleysanayo talada waxa kale oo rabaa inaan ka sheego mashruuc maalin hore oo shir hore aan Stockholm tagnay aan ka wada hadalay madaxda xisbiga oo gudoomiyaha iyo xoghayaha iyo dhamaantood ay ogaayeen oo ahaa in loo sameeyo dadka xisbiga madlamka ka ah ee xisbiga xubinta ka ah ID card original oo la garto qofkaas intuu noloshiisa oo xisbiga ku jiro oo iska istaama taariikhdiisa ay ugu jirto oo ID card quality fiican ah mishiinkii baanu dirnay oo mashruucaan anigu abaabula ka ahayn ka shaqeynayay mishiinka wuxuu imanayaa bishan 8 hadii ilaahay ka dhigo bisha 8 waxay ka dambeeyeen qof walba waxa looga baahan doonaa inuu soo dirto oo gudoomiyaha magaaladiisa ama gudoomiyaha xisbiga gobol magaalada uu keeno sawirkiisa iyo magaciisa kadibna muddo week meelaha ama 10 shaqo gudahooda ayaa dib loogu soo celin doonaa boss baa ka shaqeysa caalamka oo iska way fududaanaysaa si dib la isku dir lahaa hawshaasaan ka shaqeynay markaa waxa fariinteeda ahayd in mishiinkaasi imanayo 8 bisha weega labada week gudaho wixii ka dambeeya la sameyn doona kaarkii madlamka oo qof walba sawirkiisa iyo numberkiisa iyo magaciisa ku yaal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مية كحجان كحسب كلمية قبل كا يسترا جودلان يسترا أحمد عيق السودوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدحت شرفت له يا دمان تاجرياش كلمية رجية دمر با وحنا دكتور سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mar labaad runtii waxaan salaam ballaaran aan idinka sidaa gudoomiyaha gobolka Western Jutland Idris Maxamed Ran dhammaan gudida gobolka Western Jutland rag iyo dumar hambaliyo iyo bogaadin ay idin soo dirayaan reer maalmo anigoo Axmedina waxaan leeyahay shirkan aad iyo aad u qiimaha badan ee soo abaabsheen ku dayashaad mudantiin wadna sharafteena ilaahayna sharaf haddaan ku soo noqdo qodobka kale inaan u hambaliyeeyo garabka haweenka caawa halkan afarta bilood soo shaqeynaya lagu magacaabay hambaliyaan idin leenahay wada shaqeyn wanaagsan insha Allah bismillaahi kariim waxa kaliya toon idin ku daraya waxa weeyaan hawshan xisbiga kulmiye iska fariiso ma hadii lagu magacaabo haddaad xil qaaday xil baad qaaday xilkaaguna waa inaad uga soo baxdaa sidii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qarankaaga u shaqeynayo kale waa inaad habeen iyo maalin u shaqeysaan waa inaad mar walba isku duubnaataan waa mar walba aad huwanaataan mar walba aad huwanaataan qarannimadeena Soomaaliland iyo isku duubnaanideena way xisbigeenu maanta waxa weeyaan inaynu hore u qaadnayno doonaynaa marka reeskoona taanu ka codsanayna waxa weeyaan inaad dadaalkiina sii laba laabtaan inaan ayna maanta u noqon inaanu halkan idinku nimid
inaanu dhowr kun jeer ku soo noqono oo mar walba aanu idin imaadnana aanu aragno insha Allah bismillaah kariim horumarkiina anagu Western Youthland runtii horumar aad u ballaaran baanu sameynay sida maamul daadajinta oo kale gobolada Western Youthland oo dhan maanta guddi baa ka dhisan gudoomiyayaal bay leeyihiin gudoomiyayaashii garabka haweenkay leeyihiin kuwii dhalinyarada leeyihiin lacagtii madlamka waanu bilownay oo 200 oo koron baa bishii laga ururiyaa idinkuna waxaanu doonaynaa inaad insha Allah aad saasameysaan insha Allah de wada shaqeyn wanaagsan hanbaliyo mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum مسؤول halkan fadhiya oo hadlaya afka safaaradda Somaliland ee Sweden Xuseen Wadaadiyare soo dhaw Xuseen Wadaadiyare bismillaahi raxmaani raxiim Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan ha noolaado madaxweyne ku-xigeenka Abdiraxmaan سيدي هنولاد دمان حسبيدا قرنكا هنولادان قولها قولتي قولها بارلمان كاي وزيرة قرنكو يا دمان شعب كسوغا هنولادان إلهي وحن كبرينا أبارتها أمانتا حيسا إلهي ناقي قادان كبرينا دلكين وحن برينا برواقية بش برينا انتا كدب وحنك السلام يا قدوميها حسبيها كل مياه دومي كحيجينكا حويا قود قربكا هوينكا كحيجين نديدا iyo dhammaan xubnaha halkan jooga gudoomiyaha guddiga ictiraafraadinta iyo saraakiisha kale xildhibaanada dalka Sweden qaar ka mid ah fadhiyan arkayo laga doorto degmooyinka dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta kadib waxa iminka aad arkaysaan oo wadankii ka taagay waxa weeyaan waa sixir barar laakiin waxaan idin sheegayaa Sweden laftigeeda sixir bararku ka taagay عالمكو إنه هذا عالمكو سكود حري لما كدور سنة كهر كرون كوحها لح كرون بوها لح كرون يبرد من عين كاي سامها دولاركو هل كدولار روحها لح كرون يلح ده سنتي ما أنت وحويا وصقال كرون يلح ده سنتي أنتو كرني ودكتي وهو كرني بقول كي صدموا كرني أيها صد عي قيمه دو كرون كينو waddankana waddan adag oo dhaqaale leh odogtiin haddana maanta waxa weeye waa dabayshani waa dabayl socota weeyaan sidaas leeg boundkii ingiriiska iyaga laftigiisa wuu circirayaa oo aad bay maaragtay u soo dhacay innaga waxaa ogtihiin wuxuu ahaa 6-7 ahaa wuxuu tegey 8 iyo bar baad u fiirsado 7,000 buu ahaa 8,500 buu tegey waxaad arkaysaa wuxuu kor u kacay waxaan ka badnayn 15% xukuumaddu markiiba way u damqatay dadkeedii waa ogtihiin madaxweynaha iyo wasiiradu waxay soo saareen in mataqaanaa sixir lala dagaalamo wuxuu ku soo noqday 2 cisho 3 cisho wuxuu ku soo noqday 7 ku soo noqday waa ogtihiin bariiskii hoos buu dhacay raashinkii hoos buu dhacay laakiin waxa weeye waxaan doonaynaa in aan ku taageerno xukuumadda oo lagu taageero go-aanka madaxweynaha iyo wasiirada in lagu taageero intaas taa kale waxa weeyaan kale tale waxa weeyaan doorashadii iyadoo liigii abaaraha iyo waxaa dib baa loo dhigay mudday maaragtay ilaa October ayaa taasoo ay golaha guurta awoodda leeyihiin waan weli soo bixin haddana waxay isku raaceen in dib loo dhigo taas waxa weeyaan daba inaga maxay nala gudboon xisbiyada qaranka ee jooga dibadda waxaa la gudboon inay isku duubni iyo midnimo sameeyaan halkan gudoomiyaha ictiraafraadintu wuxuu idiga sheegay in la furay safaaraddii la furay Soomaaliya waxba inaga wayna khusayaan laakiin waxay leedahay saameynteeda leedahay isku duubnideena iyo midnimadeena haddii ka shaqeyno waxba inaga qaadi maayaan waayo imkasiyaad baroo jiray oo ogtihiin ayaa ingiriiska lagaga mutaqaan mudaharaadiyay laakiin waxa weeye haddii inagu ay la bataan oo markaa iskuullada joogtaan iyo markaa xafiisyada joogtaan iyo markaa joogtaan tiraan Soomaaliya oo nahay Soomaaliya de waa qalad oo inuu wali waynaha macallimiinta bartaan ardayda bartaan iskuullada bartaan aatirano waxaan Somaliland jahiliyada waxa la wax ka qaaday ma jiro ya haween Somaliland baan nahay sharcigiina haysataan ya
marka waxaan leeyahay taas ka shaqeeya abaaraha waa u tihiin roobka waxaa laga yaabaa ilaahay u keeni kara alxamdulilah laakiin abril baa dee saadaashay tahay leegaya 3 bilood horta marka hore idinku nin walba reerkaaga waxa u diraysa u sii raban laab kii boqol diray 2 boqol diro inta kalena wixii dadka guud ama dadka masaakiinta ah kale kaama kana wixii loo diri karaya loo diro waan ku waxay inoo diro madaxda meesha fadhida waxaan leeyahay xisbiyada qaranka dhamaantood waa in mataqaan wixii dawladdu ay soo saartay wanaagsan ee dadka iyo ummadda iyo qaranka wadadu aad taageertaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Yestera Godland Festera Jodland Kinsi Chauffeur soo dhaweeyay waxaan doonayaa in yar oo kelmada inaan halkan ka idhaahdo aan badnayn anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha Faras Yare Jodland ee garabka haweenka mar labaad waxaan doonayaa halkan inaan salaan sharafeed uga gudbiyo hablaha cusub ee garabka haweenka ee halkan ku soo biiray waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee sharafta leh ee idinkoo in yar ku jiray xisbiga muddo 3 bilood aan gaarsiisnayn ama 2 bilood ama 4 bilood aan gaarsiisnayn dardargelinta quruxda badan ee ah ka wadaan iskoonaha miyaa leeyahay meeshina hablaha waliba magacyadooda markii way qajilayeen si fiican aan ugu maan maqlaynin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waa mahadsantii inta haddii aan u sii dhaafo waxaan doonayaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka Mr. Saylici isagana mahad gaar ah ayaan u dirayaa waxaan leeyahay Muuse Bixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha waxaan leeyahay salaan sharafeed baan isagana u dirayaa waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa ciidamada qaranka kuwa faranta jooga iyo kuwa gudaha jooga gaar ahaan waxaan si sharaf leh u salaamayaa RRU anigoon doonayn hadalka inaan sii badiyo waxaan doonayaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celiyo madaxda sharafta leh ee xisbiga kulmiye ee hormuudka ka yahay mudane Fuaad Kaamil Ciise gudoomiye ku-xigeenka Ismaan Abshir xooghayaha guud ee xisbiga kulmiye Mr. Ibrahim Ali Aadan gudoomiyaha garabka haweenka Mr. Sahrafani iyo gudoomiyaha labaad ee garabka haweenka Mr. Caasha Buraale ama Caasha Fagale waxaan leeyahay waad mahadsantihiin hadana mikrofoonka gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka Caasha Buraale soo dhaw dhamaantiinba marti sharaf quruxda badan ee halkan isugu timid rag iyo dumar aad iyo aad baan idin salaamayaa gudida gudoomiyaasheeda sare garabka haweenka marti sharafka kale ee halkan isugu yimid gudoomiyaasha ixtiraaf raadinta qolooyinka jaaliyadaha iyo marti sharafkan kale ee dumarka iyo haweenka iyo rag gabale aad iyo aad baan idin salaamayaa annagu meel fog baanu idinka nimid 3 saacadood ugu yaraan waanu soo soconay intaa waxaan idinku soo soconay waxa weeyaan boholyowga iyo wanaaga iyo sharafteena xisbiga kulmiye u hayno aynu u wada dadaalayno ayaynu halkaa isugu nimid dhammaanteenba wada kulmiye aynu nahay insha Allah bidmillaahi kariim waynu ku guuleysanaynaa dadaalkana waynu ka hawlgalaynaa isku daymo iyo isku tiirsanin unbaa meel lagu gaadhaa waa inaynu dadaalka badinaa garabka haweenka ee sharafta leh ee wanaagsan halkan nagu soo dhaweeyay halkan lagu magacaabay aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa insha Allah waanu kulli isku tiirsanaanaynaa hadday Saynab tahay hadday Inta tahay iyo hadday Faysa tahay inta kale dhamaantiinba waan wada salaamayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin insha Allah wada shaqayn baa iyo waxay noo ballanaan wada shaqayn abaaraha jireen waynu arkaynaa inaan isku tiirsanaan haddaynu kulmiyanahay oo laan kastaana way fiican tahay aad iyo aad baan idin salaaminaa insha Allah kulli waynu wada shaqaynaynaa aan wax badan oran maayo
laakiin aad iyo aad baan idinka mahad celinaa sida wanaagsan ee nagu soo dhaweyseen wada jiriyo wuxuuna inoo ballanayeen iyo dadaal haddaan intaa ka gudbo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa horta caawa mar haddaynu halkan isugu nimid wada hadallada bariga ka socday in la hawlgeliyo waanu doonaynaa annagu dad dee badan oo caawa xitaa waxay nala joogta caawa waa laydiin sheegina qolooyin khaatimadii waaweyneed oo garaadku ka mid yahay nala jooga intaana safar buu kulmiye u soo maray waa dadaalkaasiba anigana waa iska kay garanaysaa kulmiye walba iska ahaa laakiin dad badan baanu imika soo wadnaa waanay badan yihiin Stockholm iyo meel kastaba way joogaan halkana waxaa laydinka rabaa inaad dadkii aad baadi doontaan insha Allah kolley dee waanu la soo hadli doonaa anaguna wixii halkan xidhiidh aanu la soo yeelan karno dee qolooyinkii khaatimana waanu soo dhaweynaynaa haddayna ciise cabditi aada cali khaliif tahayba horena waanu ugu baaqnay imikana kolley waa imanayaan insha Allah abaaruun bay naga soo dhex galay laakiin insha Allah wax walba iska dhamaan dadku waa isku mid dalku waa isku mid aad iyo aad baanu idinku wada faraxsanahay waana mahadsantihiin madaxdoodana waanu salaamaynaa ilaahay abaaraha la inaga soo jabiyo aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiinba rag iyo dumarba aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan si gaar ahaan u salaamayaa jaaliyadda maalmo oo aad iyo aad noo soo dhaweysay aad iyo aadna dadkaygu isugu xidhan yihiinna aad iyo aad baan u salaamayaa salaad sare dhammaan martida sharafta leh halkan isugu timid waqtiga wiiqaalgiisoo noo soo lumiyeyna aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa oo kale madaxda sharafta leh ugu horeeyo gudoomiyaha Fuad Kaamil Ciise xoghayaha Ibrahim Sahra Fani oo garabka haweenka iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan sida ugu quruxda badan loo soo alaasimay aad baan idin salaamayaa oo si weyn u soo dhaweyno gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye wadanka Sweden Sahra Fani soo dhawow kulmiye dhamaantood iyo dhammaan jaaliyadda Somaliland ee wadan halkan iskoona iyo dhammaan maxay ahayd madaxda halkan isugu wada timi dhamaantood waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alxamdulillaah rabbil caalamiin horta ilaahay baa mahad iskale oo halkan isugu keenay inuu mahad u celinaynaa waxaanu si gaar ugu mahad celinaynaa gobolkan aanu joogno iskoona waxaanu leenahay sida wanaagsan ee hawsha ay u soo qabsadeen annaguna aynu soo ajiibnay aad iyo aad baan horta uga mahad celinayaa waa noo farxad annaga haddaanu nahay xusbiga kulmiye dhammaantayba waxay noo tahay maanta farxad inaanu soo gaadhno iskoona annagoon hore u imanin runtii laakiin ay ka shaqayso guddi runtii aada u firfircoon oo mar kastaba runtii hawsha ka haysa hareeraha haysa rag iyo dumarba leh oo aanu ku ognahay runtii oo farxad ay noo tahay waxaan runtii kusoo dhaweynayaa hablaha qiimaha iyo sharafta mudan runtii halkan laga magacaabay muddada yar magacawnaa runtii juhdi geliyey xusbiga iyo dhammaan inta cusub ee la magacaabay waa aad iyo aad baan u salaamaya waxaan leeyahay hambalyo xilkana waxaan leeyahay ilaahay ha idiin fududeeyo hawshana iyo shaqada aynu wada haynana allah inoo wada fududeeyo waxaan leeyahay anagu xusbiga kulmiye runtii mar halkan maanaan iman mar hore waanu se la xidhiidhnaa oo dee howlaha xusbigu aad bay u ballaaran yihiin shaqada xusbiga kulmiyana runtii waxay maraysaa meeshii ugu quruxda badnayd maanta wax lagu faani karo weeyaan waxa la yidhi haddii qof wax lala doonayo dadkiisaa la siiyaa xusbiga kulmiye runtii waxaa la siiyey dad shaqaynaya rag iyo dumar isugu duuban juhdi gelinaya firfircoon dhaqaale u huraya ayay runtii u helay ilaahay wax loogu mahadnaqa weeyaan halkaa waxaan u soo marnay waxa weeyaan inuu la qaybsano walaalada iyada halka joogo dareenka inaanu kala qayb qaadano shirka inaanu meel kasta aanu isberber taagno ayanu mar walba meel kasta oo maxay ahayd wadanka aanu marno waa mid aanu ku khasbanahay runtii waanaanu soo marno shalayba shir kale aanu joognay oo runtii Frastariyadlaana markaa guddidaasi waxay runtii jimcihii dadku ay wada shaqeeyaan ilaa jimcihii waxaanu shaqooyinkoodii u fasax qaateen
waxa weeyaan inaanu runtii dardargelino xusbiga kulmiye si aan uga madhadhalino hadafka aynu doonayno iyo shaqada aynu imika aynu ku wada midaysanay dhammaanteenba waa wax ilaahay loogu mahadnaqo aadna waan idin salaamayaa dhammaantiin shaqada xusbiguna waxay runtii maraysaa meel aad ilaahay loogu mahadnaqo idinkana waxaan idin rajaynayaa sida shaqada idinkoo in yar joogay u dardargeliseen hablahan sheegaya waayo hablaha aniga si gaar igu sitiin maadaama garabkii haweenka matalayo waxaan xooga saarayaa hablahana xusbiga kulmiye waa ogtihiino dee xusbigu waa xusbi soo shaqeeyey waa xusbi maxay tahay mucaarad soo maray waa xusbi maanta madaxtinimadii haya wuxuu ku faanaa xusbiga madaxtinimada horena uu dhaliyay goolka hablaha haweenkay ahaayeen iyo dhalinyarada waxaan rajaynayaa iminkana habluhu wadankeeniina waa horyaan anaa tegay 4 bilood ka hor baan ka imi wadankeenii Somaliland runtii sidii baa dhexda habluhu xidhan yihiin raggu hay naga badsadaan yara dacaadeyna dee wixii soo baxa mar kastaba laakiin goolka waxa dhaliya waa hablaha lagu faanaa waxaan idin kula dardaarmayaa hablaha iyaga qiimaha iyo sharafta mudan ina shaqada si laba laabtaan inaynu maanta waa ogtiin doorashadii dub ay u dhacday abaaraha ina haysta awgeed waa ogtiin xusbiga kulmiye wuxuu iska taagay go'aan cad oo ah maxay tahay inuu abaaraha ay aawadeed iyadoo aynu ognahay inuu NFOS ahaa inaynu la qaybsano dadkeena dareenka iyo dhibaatada haysata aynu markaa dub u dhigno taas ayaa ka liftay waxaan rajaynayaa markaa inaynu ka sii laba laabno shaqada oo aynaan xagal daacin si aynu markaa u gaadhno himladeena iyo hadafka aynu raadinayno waxaan idin leeyahay farxad ku noolaada dhammaantiin meel kasta joogta saxaafadana waan salaamaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee wadanka Denmark wuxuu ka yimi wadan kale wuxuu inaga mudan yahay inaynu soo dhaweyno aad u soo dhaweyno gudoomiye Xasan soo dhawo gudoomiye Xasan gudoomiyayaasha laamaha kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ka yimid dalkan Sweden gudoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye xogahiyihiisa ku xigeenkiisa garabadiisa haweenka kala sarsareeya dhammaantiin salaan qiimo badan iga gudooma anagu waxaan ka soo safray duudun baynu kala roganay magaaladan Copenhagen la yiraahdo ee baduun idin dhaxayso jaaliyada Skåne ama gaar ahaan magaaladan Malmö taariikh badan baanu wadaagnaa mudaharaadada aanu qaban qaabino shirarka aanu qaban qaabino xafladaha aanu qaban qaabino inta badan qayb muhiim ah ay ka qaataan laba magaalo isku yaal baanu nahay marka inaanu idin soo safaray ka xisbi ahaan iyo ka jaaliyad ahaan baan ugu faraxsanahay waxaan ku nimi oo aanu Copenhagen kaga soo kicitinay aniga oo gudoomiyihii kulmiye Denmark odayaashii laanta kulmiye Denmark iyo madaxdii laantaba qaar kamid ah baan ku wada soconaa waxaanu kala idin wadnaa abwaan qaali ah oo abwaan qaran oo heer qaran ah gabiya Saciid Raan baa isna nala socda oo lagu xusuusan karaa gabayo qaali ah oo qarankiisa uu ku taageeray marar badan run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay xisbiga kulmiye ee magaaladan Malmö shirkiisa inaan maanta ka soo qayb galay aad baan ugu faraxsanahay run ahaan haddaan idinka waramo kulmiye Denmark waxaanu ka furay wadanka Denmark 2002 ilaa iyo 13 sanadood aad baan u soo shaqeynay qaybtii hore halganka oo xisbigu ku soo baxayay waxay laantaas Denmark ay caan ku ahayd inaanu had iyo jeer heerka koowaad kaga jiray bixinta qaadhaanada taageerada raadiyo horyaal qaadhaanka guud ee heer qaran la nooga baahdo oo dhan laan aad u bixisay inaanu hayn maanta waxaan sidoo kale aanu diyaar u nahay inaanu mar labaad aanu musharaxeenana isbarbar taagno taageerada la nooga baahay laan ahaan aanu diyaar la noqono ayaanu diyaar u nahay sidii shaqadaanu hayn jiray mid inaanu si lama laabnaabano diyaar u nahay dhawaan waxaanu qaban doonaa shirweynihii laanta oo wadanka qaybihiisa kala duwan dadweyne isaga yimi ka soo qayb gali doonaan wuxuu ku qabsoomayaa magaalada Copenhagen maalinta 17 February baanu cayinnay inay Copenhagen ku qabano shirweynaha caalami ah oo aanu ku macsuumi doono gudoomiyaha kulmiye ee Sweden iyo madaxdiisa kala duwan waxaanu kaloo macsuum noo ahaan doona maalinta inuu naga soo qayb galaano jecelahay gudoomiyaasha Norway iyo Finland
oo iyana aanu kolley u diri doono macsuumad tan la mid ah barkulankaasi wuxuu noqon doonaa Scandinavian ama North Europe kulmiyo oo dhan meel kulmisa inuu halkaas isugu nimaadna baan rajaynaynaa inuu noqdo kaasi 17 ku noqon doonaa imika jadwalkiina ama kalendarkiina ku sii qorta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما واحد سلام يا نهارت مركو قول سوا سلام السلام كان اللي كل سلام يا بالشوين تا رأسه مع الله هالكاس كوستيمي كران حسب كل مية تاجيرية شيسة واحد سلام يا وقرين قدوميها وضن كسويدن فؤاد كامل يقدوميها شا قرب بضع كلا دوان قرب كهوينكا يحبناها كله يوم شرف طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرتي وحن قبل دورت التيار وأنا مكوان قبيا قبل نوع حب بدني حلقنك صومالي لان مرين وهالكل مرور بسكول الماضي قرن ماذا صومالي لان بينو كهذا الله قرن ماذا صومالي لان حاضر بحاضوا قبل هالجن باو بحاضوا مركا بعد ما هالجن كود بحاضوا هاي ردت مكا عصب معيو لكن ميدان هراء اللي كنت ريه ملاو سيدنا يوتيوب كناس كجورة أيام دوني حوجا يرو قابن وعند حدا كده وعن سوق قابيو سين وقت قول علينا قرن ماذا صومالي لان قوق كمان هليني انت هنطق يقول قيمة له يقف يقول شوكتو أن قرقوي يقول قمي قافل كان قرنه وقرن حريرة يوح بدن قو كذا دعاء قيم كذا والله انتهى غير ترتدي قاحو يتني يهاشم يقلب كي عين يالي قوس يا إلى رمصو يقور يدا إيجي قبعدا هركيسة يبربرا قلاحيدي بورتا قضوجي تقدر يسرار قروح دي دالود با قماتك هوكي لوغو كده قماتك هوكي لوغو كده قرية ميسانكا قرمدي يدولكايجي هادو ولي لقيقاي حمل سقراله راريجي كستا واكا قايبه مسقادي كراوغيو حرق قلوعي رغنا قنسمات كلا كلاي iyo qooma kala gaaray qorole uu kala geeyaa qaashka la istaree balse qaafka ku mool haween lagu qamaama qaranimada Soomaaliland qooq kumaan helinay ragi qaylo weynow madfaca qali u qeyshaartay aynaan qaabili karay lagala quus qaatay iyagoon qoraal iyo dhigmiyo qalin dhamaynaynin qoomkii lixle iyo Maxamed Cali qaar kaliya aadan ودوين أخرى هي شهيد قري كل الشامة قاعد هربا حسن كي أقومي قرقو إيا إلكا قايد كي شهيد كي وهرك عيقران كويان حسن سلبان ولا ومشاهد كقوري أو ننتهي سركالة مركا تاريخ داسي يعني نساكو حسينو مستقانا رقبان بعد هالكين قوي واسكير دول مريا قايد كي شهيد كي وهرك عيقران كويان كوصار نقلن باوينيمو وانو قرينا قبتي شينا اللوردقي ninkii ogeeyay qiirooye qabcadii adkeyd ana dadii qaas ku kala jeexay qunu dirirkii koodbuur rag badan qaadan waa gili qodobada albaabada dhambaal dunida loo qaybsho oo SNM lagu soo qoraa waa mid qaali ah qaraarkii iyo go'aankii tuqsi yaa qiimo weyn mudan intaasoo qaliifo iyo rag aan qaaf ku qabanaynin inaan qulwalaha loo akhriin ma aha qaynuun ragii qaranimada Soomaaliland qooq kumaan helin ragii qaylo weynow madfaca qali u qeyshaartay aynaanay qaabili karayn lagala quus qaatay iyo qaybta weli nool haddaan qalin ku suureeyo ma qarsoonto qorax soo baxdiya qamar iftiintaayo qoorweyntii aayahan dhistay iyo qodobkii siilaayo nin kasta ha qoonsadee waa taala qaaliya qoorweyntii aayahan dhistay iyo qodobkii siilaayo nin kasta ha qoonsadee waa taala qaaliyahe qadafidin ka dheer yaa xumo qaladi biixoowe qarqarada wixii kaahinow
suunku kala qaaray qamandhacada jiilaal wixii qaarka sare daalay ee aaqadooda u marteen waa wax noo qoranay qarannimada Somaliland qookumaan helin qorweynta geelana haddaan oodu qabanaynin ama qaydadkeeya iyo xijaab qarale loo yeelin aswaar ku qowdhabo didmay qabax ka siisaayo dadkana calan qutuma yeelasho iyo qalab ma duujaane waxa qaayahooda u kamila qoonka maamula ee nimayo qudaadii saldanad baydun qabateen ummadda qusuusiga ah baa madax u qaadeen waana ehel qaraabo iyo xigtiya saada qaal iyo qurunina aqoon kama sinayn tan iyo qaabiile qudhiina la doortay oo shacbigu idin qaweeyeen ilaa ilaayatiin loo qarxirin ma aha qaynuun garaalaada intaas oo soo gudbay waxaan rabnaa hadeer inaynu soo dhaweyno oo inoo sheegi doona kelmadaad kooban ma aha khudbadiisii laakiin halkan wuxuu ka sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo hortiina xilal isbedel iyo waxyaalihii dhacay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee wadanka Sweden Fuad Kamil Ciise Fuad Kamil la soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين waxaan halkan marka hore uga mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inoo galaaday ina siiyay inagoo caafimaad qabna kulan khayr qaba inaan ku yeelano magaaladan aynu maanta joognay maalmo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa magaalada aanu marsida u nahay oo aanan marnaba ilaabay runtii sida quruxda badan leh sharafta leh milgaha leh ay noo soo dhaweeyeen iyadoo aan run ahaantii gaadhin waqtigii aan ugu talagalay inaan khudbadayda ka jeediyo haddana waxay noqotay lama huraan inaan soo kaco si aan u magacaabo ama aan isbedel aanu ku sameynay hoggaanka xisbiga kulmiye Sweden qaybo ka mid ah oo aan caawa sheegi doono oo kaliya intii halkan iskoona ka khusaysa ilaa iyo Västergötland waxaan halkan idinka hayaa cudurdaar gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Finland Ahmed Khaliif Ahmed Wali oo inoo iman lahaa laakiin nasiib darro ay diyaaradda ka timi aad buu idin soo salaamay runtii caawna inuu nala joogayo bay ahayd iga gaarsiibay inaan u hanweynaa oo imaado xisbiga kulmiye ee Sweden gaar ahaan magaaladan Malmö halkan waxa aan ka tilmaami doonaa ka sheegi doonaa magacyada cusub Xasan Jamhuuri saaxiibkay oo ahaa gudoomiyihii gobolkan Iskoone isla markaana ahaa afhayeenka xisbiga kulmiye ee Sweden inuu caawa u wareegay xilka uu qaadayna uu yahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee dalka Sweden gudoomiye ku-xigeenkii isagoo oo bedelay oo hal xilka uu inoo hayay buddigii odaygii xisbigan maanta aynu halkan u wada fadhino aabaha u ahaa la'aantiina aanu jireen run ahaantii xisbiga kulmiye waa mudane Cusmaan Abshir run ahaantii af kuma soo koobi karayo anigoo wadnaha ka hadlaya hawshii uu xisbiga u soo qabtay Cusmaan oo bilowgii aasaaskii xisbiga 2002 ilaa maanta oo aynu joogno awoodda iyo juhdiga u soo jeedka fikirka xalka waynu naqaanaa bulsho wadaagaysa hanaan siyaasadeed xisbi in hadalku xataa sometimes u baydho wax la isku afkaran waayo wuxuu ahaa mujaahidka ruuxiga ah inuu joogay waxaan rajaynayaa inaanu Cusmaan sida ay nagaga dhamaan winala joogi doono mar walba aanu baahanahay insha Allah ta'ala xilkina uu sii hayn doono odayaasha mustambeedka xisbiga kulmiye halka markaan marayo
gudoomiye ku-xigeenkii hore ee iskoone oo ah Saleebaan caawa laga bilaabo sanad wuxuu qaatay xilka gudoomiyaha guud ee iskoone ayuu yahay hinda sheekh cabdiraxmaan qaadi oo aad noogu qaaliya ayaa fadhida halkan hinda waxay ahayd mujaahidad ka soo shaqaysay kuna jirtay xisbigii cid nasiib wanaag iyo farxad iyo gobonimo ayay noo tahay inay caawa ka mid noqoto xisbiga kulmiye ee Sweden hallo ka hinda soo ka hinda waa xubnihii waa madaxdii xisbiga oo cid ugu kulkululaa ugu magac dheeraa ugu hawsha badnaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala hinda oo caawa laga bilaabo xilkeedu yahay ku-xigeenka iskoone gudoomiye ku-xigeenka iskoone inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u fududeeyo shaqada iyo xilka loo magacaabay waan huba inay ka soo bixi doonto juhdi iyo waqtina ay gelin doonto runtii gabdhaha musharaxada awal waxaan kaloo halkan idinku hayaa gudoomiyihii hore caawa laga bilaabo wuxuu noqonayaa gudoomiyihii hore ee garabka haweenka ee Pastor Gotland Marwo Kinsi RRU oo iyaduna caawa laga bilaabaa hoos soo dhaadhac Kinsi dad kale oo iyaduna caawa laga bilaabo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee garabka haweenka xisbiga kulmiye ee Sweden saddexaad ya waxaan halkan aad iyo aad aan uga bogaadinayaa insha Allah taala khayrna uga rajaynayaa xubnaha cusub hogaanka cusub mas'uuliyiinta cusub ee xisbiga ku soo biiray si aada oo kal iyo laaba ayaan soo dhaweynayaa waxaan ilaabayna marnaba gudidii ka hor halkan uu ka magacaabay uu ka sheegay walaalkay Saleebaan ee gabdhaha ahayd oo run ahaantii halkan aan ka cadaynayo inay soo kacaan aadna ay u shaqeeyeen run ahaantii muddadii yareyd ee ay joogeen ama ay xilkaas loo imaday ay soo kordhiyeen horumar aad iyo aad u laxaad badan waxaan halkan nala joogaa gudoomiyaha gobolka iskoone ee garabka haweenka Saynab Caynaan gudoomiye ku-xigeenka Foosiya Maxamed bayduna joogta bile Foosiya Maxamed bile insha Allah taala waan soo noqon doonaa aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dumarba hinda sheekh cabdiraxmaan hinda qaadi oo kelmadii noo odhan doonta ayaynu soo dhaweyn doonaa soo dhawow hinda halkan iskugu yimid reer Somaliland dhammaantiin waan salaamayaa waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa martida sharafta leh ee meel walba nooga timid ugu horeeya gudoomiyaha Faad Kaamil Ciise soo dhawaada dhammaantiin aad baad u mahadsantiin xogayaha xisbiga kulmiye Ibrahim Ali Aadan waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa marwooyinka sharafta leh ee halkan goobta fadhiya Sahra Ibrahim Abdi oo ah Sahra Fani oo ah gudoomiyaha garabka haweenka Sweden soo dhawow magaalada Maalmo waxaan ku soo dhawahay raaxo oo raaxo dhaqaaq kala dhaqaaq kulli waan soo dhaweynayaa dhammaantiin waxaan halkan aad uga salaamayaa gudoomiyaha مشرح مدوحينها مسبح آدم اوكي مسبح عبدي مسبح عبدي يم مدحوينه كحيينك مستر اسماعيل عبد الرحمن عبد الله السيلعي aad baad u mahadsantiin sida sharafta la idigu soo dhaweyseen ilaahay waxaan ka barayaa in xilka la magacaabo ilaahay i fududeeyo oo si loogu talagalay aanu qabto anigoo ku qabanay si daacada oo ugu shaqeynay ummadayda Soomaaliland
وميل دير إيجا تالا آد بان دوما مهتسنتي دمانتين آد يا تاديس دويتنا آد بدو مهتسنتي xubin kale aad iyo aad xisbiga ugu qaaliya guud ahaan xisbiga kulmiye waa xoghayaha guud ee xisbiga kulmiye ee wadankan Sweden Ibrahim Ali Aadan aad loo soo dhaweeyay xoghaye Ibrahim la soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين من أمور الدنيا والدين قدومي حزب الكلمية السودان فؤاد كامل عيسى مدحنا كلام حزب الكلمية مرتشاب ثالث سوق تيمي أنا جو أن مقاعدين كلا قاضيين وحنا تكون سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كلا سوين والسلامة يا وسود وين يا قدومي حزب الكلمية يودا كدن مارك قدومي حسن يوفتي الله سعودة وهالكين نقول صوب بقضي يا اللي نقول سودوين سيدو كل واحد سلامة يا سودوين يا قدومي قدي الاعتراف رادين تاي سومالي لان صاحب كي محمد وهؤلاء العلوس وهي شعب كريم سومالي لان يا أيكو سودوين وهالكين نقول ما هاد نقيا حسب الكلمية لان تيسيسكونه أنا قوم كلا قاضيين قرب هوين دلنيرو هوجانك جود سيدا شرفت إيا كرامة إيا قيمة عليه يا إنوسو دوين يا بانو يدك ما هدقينا فرحت بين نوتا ينا ندين نمادنو شرف إيا كرامة نوتا ينا نسكونه نمادنو وانو لكولانو هوجانك حسبيغا إيا سكونه إيا تاغيرياشا odayaasha haweenka dhalinyarada culimada diinta iyo aqoon-yahanida reer Somaliland ee iskoona digan guud ahaan iyo gaar ahaan bahweynta reer kulmiye aad baan ugu faraxsanahay inaan nimaadno waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee maalmo ama iskoone saaxiibkay jaamac oo runtii shakhsi ka tilmaaman shacabka reer Somaliland guud ahaan jaaliyadda iskoone ama maalmo ee Somaliland waxay ku guuleysatay waxqabad runta marka lagu hadlayo ku dayasho mudan maanta xafiiska markaanu tagnay waxa shahaado taala waxa brace yaala waxa bogaadin taala waxa hawl ka socota runtii aad bay noo farxad gelisay waanu ku faraxsanahay waxaanu ku leenahay adiga iyo gudidaadaba xilka ummadda oo haysan ilaahay haydi ku guuleeyo jazaakumullahu khayran waxa aan jecelahay inaan halkan sidoo kale uga mahadnaqo saaxiibkay حسين وداديره قدومي كحجينكا دلدا Somaliland oo isaguna halkan inoogu yimi intii kale aan dhaafay amaan magacyadooda xusin ee kamid ah bahweynta xusbiga kulmiye ama bahweynta reer Somaliland ee ku dhaqan iskoone idinkana aad ayaan idinku mahadnaqayaa walaalayaal maanta shirkan isugu nimi waxa uu ka kooban yahay laba qodob oo muhiim ah qodobkooda waxa weeyaan waddankeennii waxa ka jirta abaar aad u qadhaadh maanta waxay maraysaa heer xoolihii markay dhammaadeen ay marayso in dadkii gaajo iyo haraad ay u dhimanayaan walaalayaal dadka ilaahay waxba uma waayin subxaanahu wa tacaala waa mucjiso iyo arrin innaka inoogu furan cibaaro waa la isku eegayaa ilaahay wuu isku keen eegayaa waxaa ka mid ah hadallada ilaahay subxaanahu wa tacaala ama aayadihiisa qur-aanka waxaa ka mid ah dhulka isaga naxariista aan samadayda ka naxariisteen walaalayaal waxaan kula dardaarmayaa anigoo og qof waloo intiina imika halkan fadhida ka mid ihiba inuu mar iyo laba iyo saddex jeerba
diray ama ka qayb qaatay arrimaha abaaraha iyo qaaranka abaaraha inaynaan ka daalin inkasta oo aynu ognahay gacan bini aadmi inaan cidina ku dhargin haddana walaalayaal ducada rabbi bariga in ilaahay roob khayr qaba ummadda u shubo iyo inaynu weliba dhaqaale ku taageerno iyaynaan ka daalin walaalayaal inta ilaahay raxmaadkiisii ummadda u shubayo qodobka labaad ee kalaan doonaya caawinan ka hadlay waxa weeye xusbinimadu waa maxay waxaa halkan suukan kale dhammaanteen waxa weeyaan inaynu nahay kulmiye waxaynu leenahay hal hadaf waxaynu nahay hal qabiil waxaynu nahay hal beel waxaynu nahay hal xusbi oo la yidhaahdo kulmiye maxaa laynooga baahan yahay haddaynu kulmiyaha yurub jooga nahay ama kulmiyaha Soomaaliya jooga haddaynu nahay maxaa laynooga baahan yahay xubnaha iga horreeyo halkan ka hadlay waxay caddeeyeen waxay yidhaahdeen inta inaga mid ah ee codaynaysaa waxaa laga yaabaa haddaynu tirino inaanay boqolkiiba 0.1 inaanay ka noqonayn waa 4-5 qof baa laga yaabaa inta halkan fadhida haddii ugu badan yihiinba oo maanta kaarkii codaynta haysata niman saaxiibna baa wuxuu yidhaahdaa waxa looga baahan yahay reer kulmiye waxa weeyaan inay dahabshiil ka codayaan oo macnaheedu yahay inaynu inaku xusbiga qaadhaan gelino xusbiga inaynu wuxuu ku soo bixi lahaa ka shaqayno maxaan kaga sheegan karaa dadka aanu kulmiye markaan leeyahay kulmiye aan ahay maxaan kaga sheeganayaa tusaalahaan isu dhow baynu degannahay xusbiyaa ka jira waa waddan dimuqraadiya maadaan kula social democraty baan ahay maxaan ku sheegaya social democraty xubin baan ka ahay dhigaal baan bixiyaa waqti baan geliyaa waan u shaqeeyaa markaasaan ka sheegan karaa qof kale oo anigu waxaan ahay social democrat ama moderate ama conservative sidoo kale kulmiye markaan sheeganayo kulminimadu maaha magac maaha beel heblaaye meel degtaan ka dhashay waxa weeyaan inaad wax ku darsatid markaad xusbiga wax ku darsatid ayaad ka mid tahay waxaan kaloo dareemay walaalayaal anigu hadalka ku dheeraanaynin xusbinimadu waa inaynu haddaynu doonayno xusbi dhaba oo rasmiya inaynu samaysano oo aynu boqolka sannadood soo socda kala dhaxallo waa inaynu sida xusbigu ay Yurubtan aynu joogno ay u dhaqmaan xusbiyadu waa inaynu dhaqanaa waa inaynu qaadaan ka bixinaa waa inaynu dhigaal ka bixinaa waa inaynu waqtiga u hurnaa waa inaynu hadii habeenba u orodnaa waa inaynu ka shaqaynaa sidii xusbigeenna aynu maal iyo aqoon iyo maskax mid walba ku kordhin lahayn xusbiga kulmiye waxaan la wareegnay iminka guddida xilka haysaa muddo iminka laga joogo sanad iyo 6 bilood baan u malaynaya qiyaastii xusbigu wuxuu lahaa markaa waxaa jirtay hal laan oo Stockholm oo guddideeduna runtii aanay guddi sidaa u sii badan ahayn waxaa maanta sharaf iyo faan noo ah in ay tahay laantii 12aad laanta iminka iskoone laga dhisay ugu dambeysay ee Helsingborg waa laantii 12aad oo mid walba ay leedahay garabkeeda dhalinyarada garabkeeda haweenka hoggaankii guud mustambeedkeedii iyo taageerayaasheedii sharaf iyo karaam inoo tahay farxad bay inoo tahay ilaa iyo uumiyo iyo ilaa maalmo aynu maanta joogno inaynu ku leenahay laamo guddi xusbi iyo taageerayaal hawshaa waxaa suurtageliyey kow hoggaanka xusbiga halkaa fadhiya anaan kala qaadqaadayn intii u leegyihiin madaxda halkan fadhida ee laamaha iyo taageerayaasha reer kulmiye ee meel walba jooga waxaan leeyahay dhammaantiin anigoo kala qaadqaadayn rag iyo dumar aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin waqtigiinna lacagtiinna dhaqaalihiinna aad gelinaysaan xusbigiinna aad bay dhammaantiin ugu mahadsantihiin waxaan jecelahay intaa markaan ka gudbo inaan u mahadnaqo hablaheenna reer iskoone ee xusbiga kusoo hadda xeelka loo magacaabay oo ay lambarkow ka tahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka iskoone ee xusbiga kulmiye hinda qaadi hinda aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa xusbiga waxaad tahay qof xusbiyahana waxaad tahay qof xusbi ka soo shaqeeyey waxaad ka mid tahay garabkii Jamaal Cali Xuseen
waxaad ahayd guddoomiyihii iskoone ee xusbiga ucud waxaad tahay shaksi wax weyn ku soo kordhin kara xusbiga kulmiye guud ahaan iyo gaar ahaan garabka haweenka aad baan kuu soo dhaweynaa walaal sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa hablaheena sharafta iyo karaamada leh aniga magaciidna kala qaadqaadaynin ee garabka haweenka ee xusbiga kulmiye ee magaalada iskoone iyo weliba aan sii idhaahda iyadoo haddana iskoone ka mid tahay walaasheena ka socota helsingborg aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa boqolkiiba boqol fu'aado waktiguna waa gaaban yahay hadalka waxba saa ugu soo dheeraan maayo dardaaran baan idinkaga tegayaa waxaan walaal idinkaga tegaya waxa weeye waxaynu isku ognahay xusbinimo waxaynu isku ognahay isku duubni waxaynu isku ognahay walaalnimo waxaynu isku ognahay inaynu xusbigeennii soo saarno kelmaddii ay tidhi guddoomiye sahra ayaan in yar ku noqonayaa xusbi xaakim waynaya yes xukunka dalka inaga gacanta ku hayna waa run wasiirka maaliyadda somaliland waa kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waa aasaasihii xusbiga kulmiye taa macnaheedu maaha inaynu inaku wax gooniya ku leenahay maaliyadda ama cashuurta laga soo ururiyo dadka masaakiinta shaqo kuma lehayni xaaraan bay naga tahay waxaynu ku xisaabtamayna doona doorashadaynu ku galnaa waa shilinka jeebkeena ku jira aad iyo aad baa mahadsantihiin haddana waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee xusbiga kulmiye guddoomiyaha mustambeedka xusbiga kulmiye professor cismaan abshir oo ina odhanaya kelmaddii aad iyo aad iyo aad baa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin soo dhaweynta ay soo dhaweyseen aad iyo aad baa runtii mahadsantihiin yo garaad maasha allah waxaan u malaynayaa waxa la isa saaro shaal baa u qaalisan iyo caalankii ummadda aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad saala ii gashaan marka u horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan marka hore runtii aan doonaya inaan ka hambaliyeeyo guddida reer iskoone iyo dhammaan reer iskoone iyo jaaliyadda reer somaliland ee iskoone ee halkan maanta nagu martigeliyey ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aan leh aad iyo aad ba ugu mahadsantihiin martiqaadkaa sharafta leh ee aan nagu soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa aad bana ugu mahadsantihiin waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka salaamo dhammaan xisbiga guddoomiyaha xisbiga kulmiye faad kaamil ciise xogeyihii guud ibraahim cali aadan oo ah siyaasi weyn oo in badan kasoo shaqeeyay siyaasadda kusoo dhex jiray iswidhan gaar ahaan waxaan umaya dhowr xisbi buu soo marayoo ilaa folk bartiyeed ilaa magaranaysa moderaat meelbuu xisbi aanu ka soo shaqaynin dalkan oo aanu ka noqon member ma jiran ama xubin ka noqon ama aanu xitaa doorashadiisa isu taaginoo aanu gelin ma jira mogta markaa siyaasaddu halkaas may ka midan tahayo saasuu ku yahay siyaasi weyn oo runtii uu yahay waxaan kaloo waxa weeye guddoomiyaha haweenka saarafani guddoomiyaha abaabulka raaxo guddoomiyaha denmark iyo waftigiisa aad iyo aad xasan u soo dhaweynaynaa mogta aad baan ugu faraxsannahay baryahan waanu yaro tabana waxna waa reer denmark miyay seexdeen baanu lahayn mogta annagoo haddaynu reer iswidhannahay maxaa ku dhacay laakiin caawa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay weliba inaad tidhaahaan yurub oo dhan baanu marti qaadanaana waxaa weeye waa sharaf dheeraada oo idiin soo wareegtay halkaa ka taabtay waxaan jecelahay halkan inaan guddoomiye ku-xigeenka bedelay xasan jamhuuri aan isna ku soo dhaweeyo jagadii aan anigu magaranaysa markaa anoo sharaxi doono sababtaan runtii aan maanta uga tegey salabaan cismaan oo isna guddoomiyihii iskoona isna u dallacay dallaacadda oo fara badan tahay malaa sanadkee
kulmiye isna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa oo aan ogahay isna inuu hawsha uu ka soo baxayo oo kartideeda iyo awooddeedaba runtii uu leeyahay isaga iyo xasan jamooriba runtii way leeyihiin waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa hablahan kale ee qaaliga ah ay hinda u horeyso aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa xusbi aan habla wadaninna wallaahi meel ma gaadho uu runtaan idiin sheegay iyo dalkaba iyo meel walba waxba ragga ha eegina cidda wax ka tartaa waxa weeye meel walba maanta abaaraha kuwa wax ka taraa waa iyaga kuwa xusbiga wax ka taraa waa iyaga kuwa meesha la isugu imanaya lacagta bixiya ee abaabulka taagan ee sacabka garaacaya meel walba waa iyaga moogta aad iyo aad hablu meelay joogaanba aan ugu mahadnaqayaa runtii waxaan maadhay waqtigaa waqti iska dambeeya ah intaanan u yara gelin wax sababta aan maaragtay halkan uga yaraa odaytinimada ay ii geysay waxaan jecelahay halkan inaan runtii go-aankii maalintii dhowta ka soo baxay ee 3 xusbi iyo xukuumaddu iyo commissionkuba isku raaceen inaan soo wada dhaweyno oo aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay iyadoo abaaraha la eegayo daraaddeed in danta iyo dadka loo naxo oo sidaa doorashada dib loogu dhigo waa wax aad iyo aad runtii aad iyo aad loogu farxo arrinta iminka taagan ee sicir bararka yaan jecelahay inaan kelmad ka idhaaho waxa weeye hore halkan looga sheegay runtii arrinta sicir bararku marka abaar iyo sicir barar dadka masaakiinta ay isugu darsamaan waad garan kartaan marka go-aanka dowladdu ay gaadhay ee xukuumaddu gaadhay waxaan u arkaa inuu go-aan saxa yahay haddii wax ka siman yihiinna waa la sixi karaa waxa qura aan doonaya waxa weeye odayaasha cuqaasha sheegta ma jecelina wuxuu idhaha laakiin cuqaasha ama salaadiin waxay doonaan isku sheegeen hogaamiye dhaqamadnimadooda cidina kuma haysato cidi wax ka weydiin mayso laakiin marka dhaqaale iyo cilmi laga hadlayo dee adeer cilmi bay u baahanta jaamacadaha looga soo baxaa ha u daayeen dadka aqoonta u leh wax walba ha loo daayaanu leenahay markaa taasina waa talo runtii aan isleeyahay way hogaamiye dhaqameedyada dee shaqo aanay lahayn bay galeene qof walba shaqadiisa ha loo daayo iyo wixii loo igmaday waxaan usoo noqonayaa waxa weeye aniga halkan runtii guddidan maanta guddida fulinta iyo guddida laamaha ay suulan waxa weye si wanaagsan baan usoo wada shaqaynay shaqo wanaagsan oo runtii sidaa imika la sheegay 12 laamood bay marayaan xusbiga siduu faad sheegayay ilaa maalintii la asaasay waanun suudan waan ku jiraa ama guddidiisu man ka mid ahaa intaasoo dhan meel kasta baa noqotay guddidiisu man ka mid ahaa waxa weeye halkan maanta uu gaadhay weli ma uu gaadhin intaasoo laamood iyo intaasoo kale waxaasina wax kale maahee waxa weeye hogaamintiisa iyo isku xidhkiisa markaa waxaan leenahay hogaamin wanaagsan bay ahaayeen oo isku xidhan oo wada shaqaynaya oo meel walba u maraya oo u tegaya oo Yurub meel walba u tegay iminkana doonaya inay Yurub isku xidhaan ayuu ahaa marka waxaan idiin sheegaya markaan dalkii tagnay samarkii isuurayno ma laga hadlayay marka la yiraahdo kulmiye xasan waa faananaayeen laakiin faananaay waxa weeye waa mid runa meel walba anagu ma joogno haysanay waxaasina wax kala maayo waxa weeye waa muuqaalka iyo shaqada iyo kartida uu soo baxday waxaan rajaynayaa in halkii laga sii wadi doono waayo kuwii markaa gaarsiiyay weli way joogaan in halkaa ka sii wadaan yaan idin rajaynayaa anaguna runtii waxaan xilkan isaga aan uga degay iminka waxa weeye dana ii gaara weeye waxaan jecelahay runtii inaan dalkiiba ku noqdo inaan ka qayb galo doorashooyinka dhacaya sidii xusbiga kulmiye u mid noqon lahaa u soo bixi lahaa ayaan doonayaa inaan qaybteeda aan ka qaato iyo halganka aan ka qaato moogta markaa sidaas iyo dhallinyarada firfircoon runtii oo halkan wada muuqata mar haddii dad yaradaa gaadhaan way yara socodka iyo waxaasoo dhan baa ku yara dhiba moogta marka laakiin dhallinyarada wax socodku dhibaya ma jire meel walba way taagan yihiin waa kuwan ilaa shalayta way soo socday halkan bay inoogu yimi marka sidaas hadalka yaan idinku dheeraynin waxaan idin leeyahay dhammaantiin inta ku soo biirtay inta guddiyada cusuba inta magaranaysaa u diyaara inay xusbiga wax u qabato waa xusbigu waa idin wada diyaar ilaahay ha idinla garab galo sidaa la sheegay lacagtoo qura ma aha baan qabaa anugu waxyaabaha loo baahan yahay haddayna foodka ku ridaynin daba haddaynu telefoon diro kulley iminka haddaynu soo telefoon dir waxa weeye ilaa intaasoo qoys baan la hadli karaa iyo asxaabaan odhan karaa
oo haysata kaadhkii war codka kulmiye ugu rida laga yaabo inay maqlaanna idinna qof walba waa saase waa inaynu dadkeennii la hadalno inaan codka hala siiyo kulmiye marka taa lafteedu waa qayb kale oo ka mid ah inaynu kaga qayb qaadano doorashada haddii aynan inagu kaadhkii codka aynan haynin lacagta iyo dadkeennii aynu la hadallo fariin dirno intaasaan idinkula dardaarmayaa aad iyo aad ba umahadsantihiin inaad dhegaysataan waxaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin sidaa noo soo dhaweyseen iyo sidaad gaar ahaan aniga ii soo dhaweyseen goy shaalka iyo caalanka ii weyseen aad ba umahadsantihiin cismaan ashibir waa mahadsan yahay waanay naga mudan yahay inaynu si weyn caawa u soo dhaweyno aad buu inoo ka mudan yahay hadda xafladii iyo khudbadaheenni waynu soo gebagabayn doonaa waxaa noo soo afmeeri doona gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee waddanka Sweden Fuad Kamil Ciise soo dhawow Fuad Kamil Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم مر لبعض وحن نكون سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا هانتي إم بدن بعد فردين وقت بدن بعد وصهرتين ساعة بدن نرنتي لكم إنه فرديني أدبان إذا كم هاد علينا يا صبرك أدموجسين iyo wanaaga iyo sharafta aad kaga soo qayb gasheen kulankeena maanta xisbiga kulmiye gobolka Iskoone waxoogaa waxaad moodaa qofku markuu daalo inuu waxyaabo badan yar seego waxaan halkan mar labaad ka magacaabayaa laba xubnood oo aad u heer sareeya oo gobolka Iskoone ka baxsan run ahaantii inaan iyagana halkan aan ka iclaamiyo caawa si ay hawshooda u bilaabaan bari haddii la yiraahdo waxaan halkan ku soo dhaweynayaa walaalkeen gudoomiyihii hore ee gobolka Iskaarabeeri oo maanta laga bilaabaa gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Sweden Master Garaad Maxamed Dhuux waxaan kaloo halkan isagana caawa aan ka sheegayaa gudoomiye ku-xigeenkii Västra Gotland mudane Axmed Cige inuu caawa isaguna laga bilaabo noqon doono gudoomiyaha guud ee xiriirka gobolada dalka Sweden ee kulmiye xubnaha aan doortay ama aan u magacawnay kadib la tashi hoggaanka xisbiga kulmiye Sweden mustambeedka xisbiga kulmiye Sweden iyo dhammaan lafdhabarta iyo dhuuxa xisbiga waxaan isla garanay magacaabista xilalkaan magacawnay iyo dadka iyo mas'uuliyiintaan magacawnay inay noqon doonaan kuwa ka midho dhaliya waxaan u aragnay hawsha inay gudan karaan insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga bareenaa inuu u fududeeyo hawsha si xilkasnimo leh oo horaba looga arkayna ay u gudan doonaan insha Allah ta'ala anuu xoogaa yar baan kulli waa daalle ku soo gabagabeynaya qasabna run ahaantii inaan halkan ka sheego mahadnaq dhamaanteed Ilaahay baale intiina dhamaan joogto hoggaanka xisbiga kulmiye marti sharafta qaaliga amaanta dhigayga gudoomiyaha kulmiye dalka Denmark aad baan ku soo dhawanayaa iyo dhamaantiin intiina kala sharafta la meesha joogtaba xisbiga kulmiye walaalayaal waxaan ognahay xisbi dalka ku soo kordhiyay run ahaantii wax qabad la taaban karo oo aan u baahnayn in ilaa maanta laga sheekeeyo oo dhinac kasta taabanaya haday noqoto dhaqaalaha wadankood markii hore ogeydeen sidoo ahaa I mean budgetka dawladda ee dalkaas dhan ee Somaliland halku mareeyay halku gaadhay different keenta u dhaxeeya waxa lagu keenay aqli iyo maskax la tuujiyay iyo xoolihii cashuurtii ummadda rayidka ee Somaliland laga qaaday laga ilaaliyay inay ku dhacdo meel qaldan ayaa keentay waxay muujisay horumar fara badan oo markaa dalkeena ku soo kordhay xisbiga kulmiye dhamaanteen maanta waxaynu rabnaa oo aynu diyaar ugu nahay u garab joognaa inuu mar labaad ku guuleysto doorashada dhici doonta insha Allah ta'ala 2017ka ilaa hadda ma hayno
mana cadda goorta ay doorashadu qabsoomi doonto marka si dhaba looga hadlo waan ognahay saddex xisbi qaran komishinkii iyo madaxweynuhu way isla qaateen laakiin hay'adda sharciyan kordhinta mar hadduu yimaado xilka madaxweynaha in wax lagu daro waxa iska la golaha guurtida iyaguna weli may dhawaaqin insha Allah waxaan rajaynaynaa in golaha guurtiduna soo dhaweeyaan saddex xisbi qaran iyo madaxweynaha qaranka iyo komishinku waxay wada qaateen insha Allah tacaala iyaguna inay qaadan doonaan maanta xisbiga kulmiye Suudaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ahaado gudoomiyoogi ma yihi shakhsi keligii wax sameeyay ma yihi shakhsi keligii wax qabtay laakiin waxa keenay wax qabadka inta leeg run ahaantii garbaha dhinacyadeeda taagan kow ay ka yihiin garabka dumarka waanan mar rabay laabo run ahaantii in la xaqiijiyo oo la cadeeyo juhdiga ugu badan ee xisbiga gabdhaha ayaa geliyay garabka dumarka geliya oo ay hogaaminayso Sahara gudoomiyaha garabka haweenka gudoomiyaha garabka ku xigeenka Caasha xubinta maanta iyaduna labaad noqotay raaxo abaabulka iyo intay naga maqanay maanta halkan aan joogo walaalayaal sida xoogayaha xisbiga kulmiye sheegay maanta maadaama doorashadii waqti gaaban ay nooga harsan tahay waxa aad iyo aad muhiim u ah inaynu ogaano inaynaan af aynu ku taageerno xisbiga kulmiye wax badan u soo kordhinay challenge baan ku jiraa xisbi adag baan la tartamaynaa runaantii maanta u cid sidaas uga ma sii fikirayno runaantii idina waa ogtiin laakiin xisbiga challenge-ka nagu haya xisbi xoog badan weeyaan waa xisbi taageerayaashiisa iyo dadka ku jira bay dhaqaalo hureen weeyaan sida xoogayuu noo tilmaamay idinkuna baa ogtiin xisbiga kulmiye wax budget oo dheeriyo xukuumadda maanta talada hayse kulmiye uu ka helaa ma jirto xisbiga kulmiye wuxuu ku dagaalgalayaa xisbiga kulmiye waxa uu doonayaa inuu ku guuleysto waa shilinka jeebada taageerayaashiisa ku jira diyaar soo maniin markaa inaguna garabkeena ka qaadan waxaan gobolkan caawa aan martida u nahay iyo dhammaan laamaha Suudaan oo dhan iyo laamaha xisbiga kulmiye ee qaaradda Yurub Latin America iyo wadamada Carabtaba aan fariideen halkan ugu dirayaa in ay kaga qayb qaataan taageerada dhaqaalaha xisbiga kulmiye ay ka geysanayaan gacan muglan ay runtii ka geystaan waxaan kaloon halkan aan aad uga tilmaamayaa waan ka qayb qaadan karnaa doorashada vote-ka dalka ka dhacaya ee codka ah waan ka qayb qaadan karnaa fasax baynu leenahay shaqada fasax baynu ka leenahay waynu geli karnaa baan qabaa haddii aynu ku darsano shaqooyinka ama fasaxa aynu ka helayno shaqadeena inaynu ku hagaajisano waqtiga dad badanna way haleeli karayaan codkana waynu ka qayb qaadan karnaa walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay mar labaad sida sharafta leh ee magaaladaas inoo martigelisay madaxdeeda mustambeedkeeda jahliyadeeda dhammaan mana ilaabi doono insha Allah taala intiina timid iyo intiina soo gaari weydayba waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa xisbigeennuna waa xisbiga maanta ugu xoogan waxaan ilaabay oo idin adii sheego qofku waa inuu haday ama bulshada ama dadka isu yimi ee hawl qaran hawl xisbi qabta ee wax qabadkooduna muuqdo maaha in la qariyo run ahaantii haddii layna qarin waayo oo layna sheegay inagana faan bay noo tahay inaynu tallaabo kasi qaadno waxaan halkan ka caddaynaya xisbiga kulmiye ee Suudaan inuu yahay laanta ugu horeysa laamaha dibadda kow inuu yahay waxa intaa inoo dheer hawlaha xisbiga kulmiye inuu ka hayno wadankan gudihiisa afraada ama shakhsiyaadda mas'uulka xisbiga kulmiye ka tirsan dalkan marka uu fasaxa taga dalkii wuxuu toos u galaa shaqada ka socota gudaha xisbigu hayo isagoo oo halka ku lumiya fasaxiisii ugu talagalay inuu xogaa shaqada kaga soo nasto ayuu diidaa inuu ku lumiyo inuu si kale kaga lumo wuxuu mar labaad shaqo kale oo xisbigii leeyahay ka gala dalka gudihiisii waa sharaf aan leedihiin idin qirayaan musharaxa madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku xigeenka Saylici إن شاء الله تعالى وحن كسوق بقبينيا آدي آد بان إذا كما هتعلنيا إيمان شيء يسار نوصل دويسين وأنا دين سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله كيجي أيين فرنا أو قدومية حزبك كلمية فات كامل عيسى وينو فريدونه طبعا كيجي وعلن كي كلمية هون أيين نعوني دونا آد بنو معايا
الله